dhaqanka Soomaalida xeerka u sareeya labada reer maanta waxa ay ku kala baxaan ayuba u xeera waligood kiista ma u yimaada xeerkii hore wixii lagu kala baxay ayaa la eegaya waxa kale loo oran jiray warba maqashay gar waa loo wada islaan miyana xuquuqalaysan ahayn markaad kiis qaadayso dad islaam oo xukumayo warad haataa buu ku leeyahay gar waa loo wada islaan wiilkaaga iyo wiil galgarta waa loo sima soo xuquuqalaysan maaha gaal dil gartiisa la sheeg adoo dilayaba haddana inaad gartiisa sheegtaa adoo miyana xuquuqalaysanka soo galay anigu cilmi belihi idinka cilmiga yaqaanee arrin la isku haya axmaar raba shaga abuurtaada laga hadla miyana xuquuqalaysan ahayn aadiyaad anigu waxaan ku leeyahay xuquuqalaysan kale uu ku jiray dhaqankeena arrin la isku hayo axmaar raba shaga abuurtaada laga hadla dhaqankeenu wuxuu ahaan jiray dhaqan hufan oo wanaagsan kolkaa wuxuu baahan yahay in la daba qabto oo waliba xagga cadaaladda waxaynu odhan jirnay nin gaajaysan gar looma dhiibto ya salaam nin gaajaysan gar looma dhiibo nin baa hare caadil maaha hadda eeg dhaqankeenna meelaha waxyaabaha in wax laga qabto iminka ayay yidhaahaanoo tan iyo ogaadeenoo siranya 5 goor buu u labalaabay xaakinada uu labalaabay lacagta dhaqankeenni waxyaabo badan oo aan ka dhiman baa jira kolaa waxaa loo baahan yahay dhaqankii adiguna waxaa tahay nin wariye ah weliba nin dhaqan labaa tahay oo dadka dhaqankiisa aad dhaqankiisa loogu garsooyaatay waxaynu u baahanahay inaynu dhaqankii ururino ninkaa in cumar geelada wixii loo keeno waxaan u haystaa ee dhaqankaa inuu aad wax uga qaban doono dee ha lala shaqeeyo reer jabuutina waxaa leeyahay haddii muuse cali furuur odayga laydhaa afartan iminka dhowr iyo 20 sannadood dhowr iyo 40 sannadood baan ka sheekeynaya dhaqankeeni waa kii la yidhi doorta ayaan qabaa waayo bakhayl maaha cadaalad xumana ma laha se laygu yidhi mana go-aa jilicsana saddexdaa nin baa ka mamnuuca baa la yidhi in xukun loo dhiibo guddoon jilicsan gar weecsan gacan guran haddii ninku bakhayl yahay oonu waxba cidna u dhiibin kuma wanaagsana hadduu guddoon jilicsan oo arrinku maanta rida casarka bedelana waa la caay oo maaha baa la yidhi gar weecsan hadduu leeyahayoo kolbaa intuu adoo maanta go-aan rida mid kale gar kula yimid oo aad haddana wax ka bedeshana ninkaasuunbaa waxaa la yidhi mamnuuc ka ah madaxda markii suldaanada la dooran jiray iyo dee ayaa إلا عاد بالله يتحامي شري ما ضح ما ناخذه كانوا يعصن قعن قولن قدون شل عصن ما عشان ما هذا لا شديد ما الله مرتي شد ما لدكتي شبد ما لدكتي شد ما الله مرتي شد ما الله عنتي وحلا يتحامي يا سلطان الله ده سلطانة دي انت عصو اتحان لو مرت شري يسونوا كبسي أتكت وحياة بدن أي شري dhinaca baarlamaanka ka waran waxaa jirtay wax loo jiray rag loo jiray geed joog oo markaa dimuqraadi oo kale ahayd iyadoo saldanada lafteeda ah saldanada da waxa adeerahay sawti la yiri ma geed joog waxaan baarlamaanka ma leeyahay baarlamaankeena waxa loo jiray guurti dhaqanka Soomaalida xildhibaan kale waxa loo oran jiray ninka la yiraahdo geed joog reeraha geedtiro reer hebel baa la odhan jiray geedtiro reer geesino uma fayooba miyaarad baqal geedtiro reer geesino uma fayooba wala dhiba ciidan baa jirayoo hal boqor la odhan jiro dee dowladda ciidan bay lahay ciidankaa mushaharka loo hayay cad iyo caano aha waxa la siin jiray kolkaa cadkan iyo caanaha ayaa la odhan jiray geedtooga nin walba reerihii intaa waxaa keen kolkaa reerkana uu ku qarinaya macnaku maad kalba waxna weydiinaysaa beeshii ku soo doorateed geedtooga wahay way kuu qarinaysaa war kolba maad ugu malanaa waxaa keen dee ma ogay kuwii kalena waxaa laga sugayey iyagu ma oga oo waa geedtoog reer markay isu yimaadaan waxa la odhan jiray guurti kow doomiyaha kolkaa suldaanku waxa guurtidu go-aamsan buu fulin jiray guurti ka dooday iyo go-aan guddoon ku raaca go-aan xaq yahay baa la odhan jiray
guurtidu waa inay ka dooddaa oo ay aada uga dooddaa guddoomiyuhuna waa inuu ku raacayo suldaankii uu ku dhawaaqa go-aanka kolkaasoo xalaaloobay ayaa la odhan jiray markay dhallinyarad odayaashu soo doortaan afartankaana ninka ee dadka lala hadlaayo go-aan ma maroorsan karo gurubna kuma baaqi karo gurubna kuma baaqi karo yani celaan guurtida ogeyn kuma dhawaaqi gurubna kuma baaqi karo go-aan ma maroorsan karo waxaan guurtida ogeyn ha baarlaman adag bay haayeen guurtida innagaa kala saribinayoo guurtidii baynu geedjooggii baynu guurti dee ugalo wakiilaan jirin laakiin wakiiladu waxay ahaayeen nimankaa geedjoog ah ee markay isu yimaadaana guurtida ah waxaad ka warantaa waxaa jira dhaqamo kale oo aad ka sheekayso oo runtii waqti aynu kulannay sheekooyin dhinaca libax oo nin aad iga sheekayso aad tidhi war gabadha yaa ku siiyaa la yidhi wuxuu yidhi libax bay siiyey bal sheekada laba nin baan arkay laba nin ayaa sheekadan ku dari doonaa aniga iyo allah u naxariista cabdiraxmaan axmed cali wabti aanu wada la soconnay cabdiraxmaan tuur asanabti ayaaba hargeysa in la soo gari doono ayaanu meel la yidhaa magaalo halkaasoo bariga ah dhagax dheer baa qolac dheer ah dhagax dheer maaha dhoqosh ayaan tagna nin baa roob kale oo kalaa dacay xareedaasoo wadhan oo kale ayaa nagu soo horiyey annagoo biyaha sidaa u eegayna oo hilibkii cunayna ayaa odaygii noo sheekaynaya qaxoona siiyey inanu dhalay noo yimi inanku wuxuu ahaan jiray kornayl wuxuu nin kalena dhalay nin qurux badan buu odayguna aada u qurux badan inankii waanu sheekaysanay hooyadiina libaax baa i siiyey buuri inankayga libaax ba carruurteeda u abtaya kow oo sidoo abti libaaxu ugu yahay wuxuu yidhi anigoo dhallinyaro ah oo 23 jooga ayaan geel hawdkaa ku hayay kolkaa geelii baa dayr weeyaa buuri nimankaa ree haarun baanu isku toosannoo col baynu nahay buuri haddayna dhex miranaysa wuxuu yidhi geelii baa iga cararay raadkii baan ku soo dhacay anoo raadkii haya duhurkii ayaa casar ayuu roobla qabsaday buuri i qabsaday geed baan galay buuri geedkii anoo roobkii baa qaadi waayay buuri ilaa casarkii gaabnaa markaasuu baan xasuustay buuri libaaxii koore libaaxaan dibadda aqoon oo caanka ah meesha waa koore buuri ayaan xasuustay buuri waan ilaawa roobkii waa maxay buuri dhulkii baan geed dheer ka waayay buuri afquulo kolkaa libaaxa ama geed dheer baa laga koraa buuri ama geed intuu isku baxay laamihiisa xoog yihiin sare oo marka libaaxu kugu soo bodo laabuu kaa qaxijinayaan ayaa la galaa buuri geedkii baan helay buuri geedkii baan gelay buuri geedkii waxaan ku jiraba 9 habeennimo ayaa noqday buuri libaax soo ordaya dhulku dee waa dhiidhi buuri oo barshashaq dee dhowr kilomitir baad ka maqlaysaa buuri wuu soo socdaa buuri oo waxaan ogaaday inuu igu soo socdo waxaan qabaa buuri inuu uriyo aniga siduu u soo ordayuu geedkaygii igu soo hagaagay ayuunbuu geedkaygii markuu joogo uu xaggii aan ku jiray soo galay ka soo gaadhay ayuunbuu wareego shuwada aqalkiisiiyo xaadhan buuri oo calaamada taalla inta rasaas taalla buuri iyo shakad iyo inta taalla qori kala jabay iyo inta lafa taalla aanad maraynahay ayuu soo galo inanbuu sitaa buuri waa inan caddoo ilaahay qurxigii qiimo u dhammeeyey dhulkuu ku dhuftay buuri dib uu u noqday buuri raacdareeb baa laydhaa wax ka dambii mid buu sugayaa buuri intii aan dhegaysanaya sugaya ilaag ayaan orodkiisa sii maqlay buuri raabkii waa hilaacay buuri inantii baan arkay buuri shawaaba agtayda halkanuu dhiga haa gacantaasaa u saaray buuri waasa qaydhis waasaan libaaxii meeya qof bini'aad miyaan ahay isug waan ka baxo geedkii intoo ka baxaan xaggii kale ka soo wareego inantii baan kiciyey buuri waana istaagtay buuri labadaydii gobaan midu guntiyey buuri marka way qabatay
اللي قبل عقاتي بوحو كبل على إنه مرة كبره إلا واحد كسر تموجي بالكن فوجك إلا ما قاضي مركو أنتوا مرة كسر سوار خلفته كل halkaa marada ku hadla nooc kastay tahay dee mara libax ku joogtay surwaalkaas ka siibaya maxaad maraysaa mara yaroo teeni hore caadiga haydana wuxuu yidhi maradaydi baan ku xidhay go-iina dacalka dilaaciyo labada miskood iyo intaa dhiiggii baan ku xidhay libaxii baan goortaba noo yimid buuri halkiioo ka soo galay buuri libaxa waxa u caadaa gurigiisa markuu joogo weligii isagoo siduu u socda geli maayo buuri waanu sii jeestaa buuri markuu kadinka joogo wuxuu ilaalinayaa wax soo socda iyo wax kadinka horta saacad u taagnaanayaa buuri wax xigeegaya u wax dhagaysanaya u saqadha daynaya kolka dambe dib u soo galayaa buuri siduu u soo galayay marka baridiisa ila socotay dabadiisa uu isleeyahay inantii ku foorarso ayaa warank dhabitaalooda yaroo asitay labada gacmood intoon isku geeyo ku dhuftay buu yidhi ka taagay buu yidhi libaaxi kadigu ka soo galay kama bixina wallaahi wuxuu ku dhaartay kor buu uga baxay wax alla wixii oo geed ahaa ee isku baxay bootadiisana uu kaga booday buu yidhi saacad buu sii qaylinayay buu yidhi dib uma soo noqon buu yidhi libaax haddii laga naxsado waa fuli wuxuu yidhi subaxii markii waagu bariyey inanta aabbaheedoo garaadkiya iyo 20 nin oo farda wataa noo yimid buuri raadkii anigoo intoo dibadda u saaray biyihii xareeddii dhulkoo wada xareedda qotanta buuri ay dhiiggii iska maydhmaydhayso oo aniguna shaar iyo go wareysito go iyo shaar aan sito oo iyada goyo kale ay xidhan tahay oo jaarikaaran tahay ayaa loo yimid buuri mar alla markay aragta miyir ugu dambaysay buuri walaaladeedii aabbaheedday aragtay waasaa dhaxay buuri waxaban mooday buuri inay go'day waar soota dhibataan isiri buuri show farxadii waa naxdin ayaa ku dhacday faraskii baa la saaray hadda soo fuul baa la yidhi warna kee maladho waan diiday waa naxsanay inay dilayaan baan mooday buuri garaadkii baan ahay buu yidhi bidhaada soo fuul garaadkii baana miyaanada aaminayn soo fuul iga wallaan ninkan maanta xaalii oo nool ugu imid ilaahay oo jecel buuri alla jecel yahay maana la jeclaadaa buuri gurigii alla igaabi buuri qolaa inanta sugaysa buu yidhi oo show shalay toog maanta in la bixiyaabay ahayd buu yidhi oo la siiyo mid ina garaadoo kale oo reer kale ah oo garaadka reer caliga ah garaadka reer caliga in la siiyo isku reer saaq baa la isku yidhahaaye in la siiyaabay ahayd buu yidhi wuxuu dhi inantii markay miirsatay ee maryaheedii xidhatay ee dawadii iyo wixiina lagu xidhay ayay u yeedhay buu yidhi aabbaheed iyo hooyadeed bay horta u yeedhay buu yidhi iyo habaryarteed ila waa inamta waa la bixinaya waa la isugu yimide ninkaasi anoo sidii hooyadayii ku dhashada ayuu arkay anoo sidii hooyadayii ku dhashada nin kale oo anoo qaawani arka aabbahay buu iga yahay bay tiri aabbahay garay cabduu iga yahay bay tiri odaygii baa loo yeedhay anna wayla tahay buuri suuxa waa la yidhi buuri geela lambarkii sumadii geela waa lambarkii una ilaa moobilkaa lambarkana iminka xoolahaaba lagu dhigaa moobilka orarkeeda waxaa geela sumadiisa noo sheeg baa la yidhi buuri waa sheegay buuri casarka hal igama maqlay buuri waa lay keenay buuri subaxii waxaa igu yidhi intan markii sidaa la igu yidhi inantaas hadday dhimatana aday kaa dhimato hadday noolaatana aday ku noolaato waana taas hadde haddaan wado ima waxma qabto ayaanu yidhi halayga sii haya intan ayer reerkan geeluma baahnuus garaadku igu yidhi buuri 25 noo qoraystaa la raciyo geel baa layla kaxeeyey yidhi halkii xadka noo ahayd markaa joogo ayaan idhi buuri adeer noqda noqon mayno waynu kula dhaweynayna bay dhahay waa intaasoo gaadi iyo wax jiraani
wuxuu geelishi sidii baa ku soo gaba galay aabbahay baan u sheegay roobkii baa dacay reerkii baanu qabannay 25 halaad iyo 20 kale 45 kaasaan isku kaxaynay buuri laba halaadoo isku sudkan iyo laba halaadoo isku sudkan waa misa afar laba habloodoo laba dumaroo u habaryara xaaska aabbahay baa siiyey buuri oo ku dhaartay inaan laga soo kaxayn waa ka dhaartay buuri garaadka reerkan geelu ma baahna buuri dee kolkaa reer garaad may ahayn kuwanu siiyey inantun bay habaryar u ahaayeen midba laba halaad buu siiyey inantii maxaa 12 may dhashay buuri 12 nin ayay ii dhashay buuri markaa sidaasaa libaaxa abtugu yahay buuri sidaasaa abtugu yahay buuri ha waxa la yaabay adeecadda reediyo Hargeysa nin ka shaqeeya imika maxamed cabdi yuusuf baa leeyahay abii baa noo sheekeeyey maxamed cabdi yuusuf waa taqaan soo maha si fiican kaasoo cashada abii baa noo sheekeeyey bari dhawaatoo dhinta wuxuu dhaha aniga oo 8 jira ayaan adeerkay geela la hayay buuri adeerkay waa doob buuri qori buu leeyahay abiire Jabuuti waa ahaan jiray oo Jabuuti lagu soo galay kolkaa socodkaaba wuxuu yidhi aabbahay baa yidhi adeerkay baa yidhi reeri baan qabanaya waan guursanaya sabraan caanaa buu soo qaatay buuri qorigiina wuu soo qaatay qori qoostargaabistaa buuri 3 xabadood baa ugu jira buuri waa soo dabagalay buuri giddi maalintii baan daba socday buuri وعبد يسبق المور رمى يا عبد محمد كان دريوي واتقان محمد دوا تقان وعيلي وصوت وكله ما رجعوا بده سعودي شو سمر العرب الستاور كل بوجيت فريستا عيني وعبيور انا قلت وي علي يا ولد هدو اركه ما انت اودن بارن استسمبور عصر كي عيد markay gaabatay ba hort dhexdeedii libaax ka ciiyay oo dhinac walba libaax ka ciiyay da fool hadda tamada guda qarsi waxa laga maqshay taw aro oo hiban ka ogeeyay bur qaylo aadaydi oo soo eegay oo intuu dhabanada qabsan ayuu ooyay meel iga celiyana ma joogo ilaa waaska barigiisii ilaa goortan aan soo yaacayn libaaxi baa ciibur wuu soo kaxeeyey buuri kayn baan soo galay buuri kaynta shugu aqalkii libaaxa buuri isaguna waayo meelaha aad u cufan ayaa laga galaa kayntii markaanu soo galnay geed dheeroo labiya ku yaalay ayaanu korray buuri geedkii ayaa intuu qaydkaygii carabkaa ka jeexay qayd yaroo kaliya leeyahay buuri ayuu igu xidhxidhay buuri halkii baanu iskaga jirray buuri caanina u wada waan cabbay buuri sakdii dhexe ayuu baanu maqal buuri libaax soo ordaya qolo meesha degane oo isaaqa ayaa libaaxinan ka soo qaatay aroosa buuri inantu waa aroos buuro 7 bixii bay joogtaa kolkaa markii gaafka la fadhiyey ayaa iyadii min xiisadii tiri aan soo kaadino inantii min xiisada ahayd wuu dilay intuu addikaa ku dhuftay ayuu intaas soo bixiyo way dhimatay buuri tanna wuu la soo cararay buuri soo cararkii ayuu geedkaygii la soo galay buuri markuu la soo galay ayuu dib cararay buuri dee nimanku way yaqaaneen nimankaasuna dib cararka inta uu maqraanayo way garanayaan kana odaygii baa daadegay buulo u arkay buuri inantu way halkan bowdada iyo gacanta iyo laf dheer ama jabna buuri ayaa nabar kaga yaala iyo halkaa miskaha wuxuu yidhi markii ay u dhagee qabtay ayay qaylisay oo suu yidhi habir libaax halkaa kugu yimaada ha ku cunee xagga dambuu ka fadhiistay buuri xabad kaliyuu sitaa 3 xabadood buuri
wuxuu ku tashanayaa buu xabadda hadduu wadnaha kala waado isna inuu dhintay ayuu qorshaystay buuri wuu soo galay buuri libaaxi bartii wadnuhuu ku dhuftay buuri wadnihii uu ku dhuftay jeerigii uu sidaa ku yidhi ayuu intaa gacanta iyo garbaha iyo feelaha daqiiqa ka dhigay buuri meenantii dee maa ninkii inantii miyuu u dhowaa isagoo kan dhexdooda u galay jeerigii uu ku dhuftay ayuu intaa burburiyey waa dhacay deeto wuxuu idhi soo deg buuri waa soo degay wuxuu idhi qorigii qabo inantii buu soo qaaday buuri inantii wuxuu yidhi midigta ii saar qoriga iyadu qaadaya iyadu inantu ma soconaysa buuri meelii ay ka jabnayd makaadu garan maayee tunkuu ku qaaday buuri goysiina wuu mara uga dhigay oo uu ku xidha wuxuu yidhi waanu la lugayna raadkii libaaxaanu la qaban harkii ayaa noo yimaadeen colkii raacdada ahaa oo gaari wata gaari weyn wata iyo fardo waa lana soo gaadhay laba reeroo labaduba aada u ladan yihiin oo habar yoonisa isagaa ii sheegayay tilmee jiri labada qoys ay yihiin labada reer waxaa laga yaabaa maxamed cabdi yuusuf inuu kuu sheego labaduba waa habar yoonisuuri labaduba waa laba dad alla waxu dhiibay buuri ayaa labada inanta kala guursaday buuri show waxaa lagu raagay tii kale min xiisadda ahayd baa la aasayay buuri oo dhimatay tii waa la geeyey buuri isagiina halkanaa la fadhiisiiyo dhakhtar baa loogu doonay buuri dhakhtarkii miyiga ah oo waxaa la kabay buuri garbihii iyo waxa la wixii 30 cishaanu joogin 40 cishaanu ku jirray buuri anigi baaba naaxay oo dharka la bedela buuri oo dharka laga keena aad yaabto reero tijaar miyiga ku abaanu u tagnay buuri ma la dhameeyey inantii uu libaaxa ka riday su ay walaala yihiin oy kala bah yihiin oo isku fil yihiin baa ninkii la siiyey buuri ma la siiyey wax hoor ah oo aan lagugu xidhayaana ma jira buuri kii kale inanta guursaday ninkii inanta dhalataa ma bixiyey kii inanta guursadayna anaa inantaa 25 ka halaad baa siiyey buuri war wuxuu idhi 25 halaad iyo aroos dee aan idiin soo noqdo magaaladii tagoo anaa wax keenaan idhi oo kolkaa magaaladan awowgay adeerkay u soo raacay buuri isna magaalada lacag iyo waxbuu ka qaaday buuri laakiin inantii ayuunba adeerkay guursadayoo ilaahay taran badan ka siiyey buuri nimankan dadkii hore dhulkeena dhibaatada ugu badan libaaxaa jiri jiray ilaa ma maqashay libaax baanu jeclaa ma maqashay libaax baanu jeclaa buuri col buu galay colkii baa jabay oday reeraha iyagu ahaa colkoodii baa la jabiyey ratacasi baa ka maratay qori rayfaluu sitay mid baa arkay qori kaa rayfalkaa ninkaasi inaanu xarasaasaysan wuu soo daba cararay gabalkii baa ka dhacay guri buu galay gurigii aan galay ayuu iga soo dabagalay buuri ninka dee waa habeen laydhna ma jiro igu soo dhici maayo buu yidhi inuu ninkaas ii yimaado iguma soo dhici miyo buu yidhi waayo da xabaddii dhunku reebta ahayd ayaan hayaa buu yidhi kii oo libaaxiyo iqoodqoodiyaya ayaa libaaxu midoo ninkiibuu qaatay buu yidhi qorigiisii uman meeshii ka soo qaatay buu yidhi aroorta dee libaaxaasanu jeclaa buu yidhi libaax baanu jeclaa ninkayni buu ahaa midna wuxuu yidhi gaariisii baa goosmay gaariisii baa col qaaday 3 nin baa qaaday markay qaadeen ay sii wadaan libaax berigaa ka horra joogay buu ahaa habrii horis buu ahaa libaaxii oo raggii oo geeryeeraya ayaa ka hor xiroo midbuu kambasha ka dhigay
labadii kalena waa yaacay geelina waa soo tidoo siduu u soo yaacayo xeradiisa u soo daatay oday raacaynashuha baa layidhi kooraa ku cuni mooye kooraa geelaaga dhicin warigii habeenna kuma seexan buuri kooraa ku cuni mooyaane kooraa geelaaga dhicin warigii habeenna kuma seexan buuri waaye daawadayaal intaasi waxaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aanu meelo badan oo dhaqanka iyo suugaanta iyo intaba ku taataabanay oo marti inoogu ahaa cabqariga weyn abwaanka weyn dhaqan ruuga ah muuse cali faruur aad baad mahadsanta